tijaabo lagu sameeyay timirta cajwa ee Madiina ayaa lagu ogaaday in ay ka bixi karto qayb ka mid ah Soomaaliya. Tijaabadan ayaa waxa sameeyay kulliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee Jaamacadda Jazeera. waxaanu tagnay goobta lagu tijaabiyay timirtan oo ay ku sugnaayeen ardada kulliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee jaamacadda, halkaas oo sidoo kale dhir kale lagu beeray. Maxamed Dayib Sheekh Abubakar oo ah madaxa kulliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee Jaamacadda Jazeera ahna asaasaha xarunta cilmi baarista iyo kheyraadka dabiiciga ah ee Sonreg ayaa ka sheekeynaya sida ay ku heleen abuurka timirtan iyo nooca uu hayo. geedkan waa timir afka qalaadna loo yaqaan date palm. timirta marka hadda noocan waxa loo yaqaanaa timirtii cajwa waa Madiina Munawwara. waa markii ugu horeysay hadda oo dalka ku tijaabinayno muddo 2 bilood oo kale bil iyo bar oo kale beeran yahay hadda. hadafkan ka leenahayna waxa waaye in aan maxay ahayd isku filnaanshaha cuntada Soomaaliya in aan qayb weyn ka qaadano anagoo ah Jaamacadda Jazeera iyo xarunta cilmi baarista kheyraadka dabiiciga ee Sonreg. Cabdiraxmaan Cabdulaahi waxa uu ka mid yahay ardada ka baxday kulliyadda beeraha ee Jaamacadda Jazeera. waxa uu ka hadlayaa sababta ay timirtan cajwa u soo qaateen. meeshan maanta hadda waxaan arkaynaa inoogu beeran waa geed timir ah waana timirtii aad u barakeysneed oo cajwada loo yaqiinay. marka waxaan u soo qaadanay istijaab ahaan inaan u sameeyno markii aan soo gadaynay ama siidkeeda aan raadinaynay koos fara badan aan ka soo bixinay, yani qarash fara badan aan ka soo bixinay. waa tii bini'aadamku insaanka caadi u cunay, mirihii la cunay, la khalajiyay, kadib waa la beeray. muhiimadda aan hadda helnay waxay tahay inuu geedaha ay baxayaan horto meel kasta oo joogtid haddii aad abuurtid inay baxayaan ay si fiican kugu baxayso. si aan marqaati ka wadanahay maanta aan wada goobjoog ka wadanahay, laakiin intaan kadib hadda waa nursery waa xanaano yar ay ku jiraan. markii ay ka tagaan waxay u baahan tahay timirtaani markii aan dib sii fiirin life cycle-keeda ama nolosheeda dambe aan sii fiirino dhul kuleyl ah. qaar ka mid ah ardada kulliyadda beeraha ee goobta loo geeyay in ay arkaan habka loo beero dhirta ayaan weydiinay waxa ay ka rajeynayaan cilmiga beeraha marka ay bartaan kadib. in cilmiga beeraha ana jeclaaday waxaan rajeynayaa sababta ku doortan waxay tahay in heer sare ay ka gaaro iyo inaan ka mid noqdo dadka mustaqbalka dambe oo wadanka wax soo saar badan ka yeesho. waxaan ka dhigtaa Jaamacadda Jazeera. halkan waxa uu imaaday inaa baraatika qaato oo baraatikada oo macallimiinta xaqay nagu siiyaan, laakiin intan waxa uu imaanay inaa wixii baraatikadii oo afka laga sheegay tusaale ahaan inaa oo aragno aa u imaanay. alxamdulillah wax badan ayaa ka fahmay like sida yani markii oo timirta la waxeenayo timirta wuxuu sheegay macalinka baalka mirta oo kowla kaliye yani in marka hore la qoynayo sida fiidiyoga hore ah u soo arkaysiin oo baalka mirta la fiiqaayo kadib markii liisha laga dhigay in la duugayo. yani fikirkeeda ka hadlo waxa rabaa in maxay ahayd ka sameeyo dhaqaalo beerna inaan sameeyo insha Allah waa rajeynaa. Dayib ayaa waxa uu nala wadaagay inta ay baaristan wadeen gobolada ay ku habboon tahay in lagu beero timirta cajwa ee gudaha dalka. dhulka Soomaaliya waxa la dhihi jiray maxay ahayd labadaba inta u dhaxaysa kaliya ee beeraha ay ku fiican yihiin macnaha 8 milyan dhibic 5 hektar ku filan. marka hadda waxa muuqata ka badan marka lagu soo daro badda cas iyo magaalooyinka dhacaya ee Soomaaliya bari iyo waqooyi ha noqotay ilaa Zaylac lagu beeri karaa. marka taas waxaan u dooranay in aan timirta maadaama ay tahay cunto oo isku dheelitiran oo nafaqo badan ay tahay ironkii vitaminskii waxyaabo badan ay ku dhex jiraan in taasaan u dooranay. gaar ahaan waxaan sii dooranay cajwa oo nooca ugu fiican oo timirta maxay ahayd oo la dhaho qidaa faakhir carabta dhahan waa noocyada ugu fiican maxay ahayd timir ay la beerto. taasaan marka waxaan islayn hadayba timir beeraysiin kuwa ugu fiican u xula Soomaalida si ay uga faa'iideystaan. tijaabadan guuleysatay ayaa ka dhigan in gobolada cimilo ahaan kulul ee dalka ay ka bixi karto timirta cajwa.